السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو مؤمن عبدي. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin ehelkayga qaraabadayda meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ciid wanaagsan, ciid mubaarak. ciidan ciideeda kale ilaahay khayr iyo nabadgelyo hayna ku gaarsiiyo. ilaahayna ummadda Soomaaliyeed ha ka saaro dhibaatooyinka kala duwan ee haysta oo dal iyo dibadba ku haysto ay ka mid tahay dawlad la'aanta iyo tahriibta oo ay dawlad la'aantu keentay iyo wixii la mid ah. ugu dambeyntii waxaan doonayaa halkan inaan kugu soo gudbiyo gabay ama tix xikmad abasa u taqaanin oo ku saabsan hooyo ama ka sheekeynaysa abaalka hooyo. hooyadii kaliya ma noqonayso, qof kasta hooyo ay dhabarka ku soo qaaday, dhabta ku soo qaaday, araxda ku soo qaaday, gobol wanaagsan siisay, naaska u dhigtay iyo wixii la mid ah. mana lagu soo koobi karo markii laga hadlayo abaalka hooyo ay ilmaheeda u gashay saacad, maalin iyo sanad midnaba. gabaygeena hadda idin bilaabayaa, dhegeysi wacan. wuxuu yidhi alkunkii hore aadmigii iyo aadan iyo xaawo, iminkoo adduunyada khalqigu meel walba ekaaday, riddaad ku nooshahaa nafluhu ku istireexaaye. abaalkaaga hooyooy haddaan eray ka suureeyo, addoon kalaba daaye haddaan ani isfaalleeyo. alla ilahe la-aantaa qof nool maba ahaadeen, duhuriyaa leylkii adoon ooma tiba laacin. walla camal xanuun badan adaa ii adkaysadaye, adigoon itaal badan lahayn ama awood buuxda. uurkaaga adigaa sagaal aayar igu qaaday, umuldihashadaydii adaa oohin ladi waayey. sidii ruux la aayiray adaa foosha ku ilmeeyey. araxdaada adigaa hurdada aamin igu seexshay, sidii awra kub wacan adaa oogada i saaray. markab aashi gaambii sidii aayar ila guuray, usha dhawar xanjeerkii adoo igu adkaynaya. inaan dhacay intaad mooday ay oloshay laabtaadu, markaan idhaahdaba maxaad oofta ka hingootay. amin dhexe hameenkoo dumoo uun ku wada jiifo, ima daayacay sida intaad orod u soo toostay. ibahaaga hooyooy maxaad ii anqari siisay, aradkaad xidhnayd iyo dharkii ku asturay jiirka. akhastiyo hunqaacada markaan ooda kaga qaado, alxamdulilah hooyoy adaan iga ajoonayn. ilxumadiyo baahida adoo iga ilaalaaya, anfacadiyo soortii intaad aniga ii dhiibtay. maxaad adigu hooyoy in badan gaajo ku abaaday, anigoon afkaagaba fahmayn ama oraahdaada. 47 magac adaa igu ammaanayay, asadow libaaxow adaa iigu alalaasay. abaartii colaadihii halligay aqalka Soomaali, markii ehelku kala rooray ee ayda lagu yaacay. alla maganti hooyoy adaa joogay agahayga, wax dhanood asxaan ii gasho waana igu oontay. iftiinkii waxbarashada waxaad igu ikraamaysay, asaagaa ka dheeree waxaad igu abraaraysay. khiyaarnimo inaan koro waxaad eebbahay bariday. anshixiyo asluubtaan watiya agabka suugaanta, murti ururinteediiyo hiddaha dhaqan astaan diin leh. afan ku hadlayaa hooyo waa ababintaadii, anigu waan jeclahay inaan wanaag kuugu aargudo. ha yeeshee axdiistiyo sidii aayad lagu sheegay, arladan wixii yaal haddaan adiga kuu keeno. irbad caaradeed may dhammoo waan ogsoonahaye, udgoonay imaqal ducasan baan kuu aqriyayaa. ifka intaad ku nooshahe bustiya ciidda lagu aasin, aafaadka dhacay iyo dhibtaba abid lagaa baaji. insaan wuxuu nibcaystiyo sharkuba kuma arkaan hooyo, naftuse waa ammaanaya markii iilka lagu geeyo. markii malag su-aal adag wataa amar la soo siiyo, argagaxa hilmaankiiyo shakigu kuma asiibaan. rabbigii ijaabaday xukumay ku ansixi qowlka, aakhirkii qiyaamada markii buunka la afuufo. cabsi awgeed maantuu ilmuhu ogta ka ciroobo, abalqaasib maantaas umoy ku ashfaca qaadiyey. albaabada jannada kaad rabtaba aqal lagaa sii. aamiin. assalaamu calaykum waa mahadsantihiin dhegeystayaal.